Zika virus waa cudur viruska keena virus weeye waxaana gudbiya kaneecada nooc kamid ah oo la dhaho Aedes aegypti ayaa gudbisa viruskaas isaga ah markii ugu horeysay waxa laga helay wadanka Uganda 1947 waadameeto Asia iyo Afrika waa hal qof iyo koox yar iyo waa laga heli jiray laakiin group badan waxa la helay mar 2007 iyo 2008 oo Caribbean-ka iyo laga helay marka waxa weeye cudur waxa waaye kaneecadu fidiso oo virus ah siday kaneecadaba u fidiso cudurka dengue la dhaho oo ama Soomaaliga loo yaqaan kuduudiye iyo cudurkan la dhaho yellow fever-ka oo xaajiyada dadka safar laga tilaalo 10 sano iyo kuwa kale oo lamid oo waxa fidisa kaneecadaas oo Aedes aegypti la dhaho doctor waxa la xiriiriyaa inta badan kumanaan dad oo la sheegayo inay yihiin caruurta markaasi dhalanaya iyo maskaxdooda iyo fikirkooda iyo sida ay caruurta markaasi awoodoodu noqonayaan iyadoo wadamada qaar koodna lagu talinayo haweenku inaanay uur qaadin arrimaha marka lagu garan karo calaamadahan maxaa kamid ah cudurkan waxa lagu garan karaa horta waa cudur oo dilaa ma aha waxa lagu garan karaa qandho badan madax xanuun kala goosyada xanuuno usoo nabro ka soo baxaan oo maaragtay jirka baabulayaal nabro gudguduudan iyo ka soo baxaan usoo qofku sidii daaf amal ku dhaco indhihii guduutaan laakiin aan malax lahayn arimahaas lagu gartaa cudurkana waxa weeye qofka haynaya dhowr casho ilaa iyo 7 marka hadda waxa la ogaaday oo la tuhmaya walina aan si fiican loo ogaan in cudurkaanayto uu keeni karo maskax yari maadaama Brazil muddo maaragtay May 15 laga helay haddana caruur badan oo ilaa iyo 3800 gaaraysa ay maaragtay lagu helay madax yari naaga badan oo uur lehna laga helay dhiigoodii cudurka inay sidaan waxa isku xariirinaya la leeyahay cudurkan waa suurtooda inuu isaga yahay dhibka waxa keenay iyo cudurka loo Guillain-Barré la dhaho Guillain-Barré waxa uu cudur qofku adimadiisa kore uusan iyo muruqyadiisana ay shaqeyneen ay nervo ka dhamaanayo muruqa adimada uusan tabar lahayn oo neefsan kareynin kaasna waa la arkay meel dadka qabay cudurkaas in lagu arkay Guillain-Barré soo batay marka waxa la hayaa maskaxdii oo caruurtii oo maskax yari ku dhalatay iyo Guillain-Barré oo zaa'iday meelihii Brazil ahaa oo hadda ay gaarayaan dadka lagu arkay cudurka inay qabaan 1 milyan iyo 300 qof lagu qiyaasayo Dr. Maxamuud haddaba hadii uu qofku dareemo calaamadahaas tilmaantay muxuu sameeyaa tallaabada ugu horeysa qofka bukaanka ay u qaadaya maxay qofka bukaanka horta waxa weeye dilaa maaha laakiin waxa weeye xanuun oo qof isbitaal gala iyo waa yar yahay cudurka daraadis u gala ama u baahda ama u dhinta laakiin waxa weeye inuu qaato cudurkii ilaa ay hadda talaalna ma laha daawo looga hortagana ma laha oo yaani viruskaas oo kale iyo dengue fever-ka iyo yellow fever-ka iyo wax daawo ah ma laha iyo usagaba marka waxa waaye in la qaato xanuun baabiye waliba xanuun baabiyaha maadaama aan la kala garanin kuwii keenay yaani inay dhiiga furfuraan oo qofka sanka iyo kaliyaha iyo dhiig ka imaadaan wax aspirin ku jiraan ama maaragtay lama siinayo waxa la siinayaa noocyahan oo paracetamolka iyo panadolka iyo waxa la siinayo Tylenol waxay u yaqaanaan adduunka kuwaas la siinayo kuwa la halmaala laakiin wax dhiiga xinjiroodka furfuraya lama siin karo oo lama ogaana shirdi la ogaado inuu yahay cudurka isaga waxyaabaha gudbiya cudurka ma ku jiraan dadka marka dumarka iyo rag soo galmoonayaan iyo dadka aad u safro dibadaha aada kaneecadu meelaha ay ku cuni karto iyo arrimaha ka war waxa la xaqiijiyay hadda oo Texas laga helay nin intuu u safray ka imaaday xaaskiisu aan meelna tagin qoftays arkeen in laga helay viruski waxa la ogaaday oo kale marka waxa weeye waxa cad meeshaas in oo galmada baa lagu qaadaa iyo isu galmoodka sidii Aedesko kale kasto hadda wixii ay badneen oo 3 ilaa 7 qof oo la sheegay adduunka
ilaa iyo Mareykankana dad safray oo soo galay oo maahina dad maaragtay kaneeco ka qaaday gudihiisa lagama helin ilaa 3 qof baa hadda la sheegayaa inay jiraan. waxaa kaloo la sheegay in caanaha maama hooyooyinka oo wax nuujiya laga helay iyadana waa la cadeeyay. marka waxaa u malaysaa in caanaha iyo galmada iyo isu-galmoodka intii eediska lagu kala qaadi jiray in isagana lagu kala qaadayo, laakiin kan waxaa dheeri inay kaneeco gudbinayso, eediska kaneeco ma gudbin jiro. waxaa kaloo safarka qofka markuu safar aado meelahaas oo kaneecadaas ku badan tahay cudurkana lagu sheegay uu tagayo waa inuu ka gaashaantaa, waa inuu mara kaneeco galaa, waa inuu habeenkii iyo maalintiina kaneecadan dadka way ataagtaa, habeenkiina waa ataagtaa. marka waxa weeye inuu gashto dhar dheer oo maaragtay kaneecada iyo lugaha iyo usan banaysan iyo adimada iyo madaxa iyo waa inuu ismariyaa wax la dhaho repellent oo mosquito repellent, waxa weeye cream ama vaseline. qofka intuu ismariyo markuu ismariyo urka soo ura kaneecada ay ka didayso ayaan korkiisa ku dagaynin. waa inuu guriga uu seexanayo iska buufiyaa, inuu meelaha ay kaneecada dadka kale to meelaha deganna waxa lagu la talinayaa inay meesha kaneecada ka abuurmayso sida biyaha fadhiya iyo la isaga shubo olyo burshaato ama la buufiyo oo sida beeraha loo buufiyo. saas baan maaragtay inay dadka safraaya iyo dadka oo meelaha cudurku ku badan yahay deganba inay u dhaqmaan laga doonaya. adduunkii hadda tuulo yar buu noqday Dr. Maxamuud oo meel walba dadkii waa ku kulmayaan. marka waxa dhici karta waxa hadda laga sheegayo koonfurta bartamaha iyo waqooyiga America inay Afrika iman karaan. dadkeena ku dhageysanaya afka Soomaaliga ku hadlaya maxaad kula talin lahayd cudurka Zika? waxaa jirta horta adduunku waa magaalo yar, qofkii shalay joogay Latin America maanta Afrika jooga, kii Afrika jooga xaggu jooga. sidaan sheegay baa hortana dad meelaha tagay baa meelaha ay oolin geeyay. hadda waxaa la sheegayaa in Amerikadaasayto Canada iyo Chile maahina meelaha kale oo dhanba inay cudurkii ilaa 21 state laga arkay baa la sheegayaa. marka waxa weeye Afrikana waa meesha waagi hore ka bilowday oo marmarna waa la arki jiray. marka laakiin waxa weeye meelna kama daasoona usaga iyo cudurkan dengiga la dhaho ama kaduudiyaha ahaa iyo yellow fever-ka iyo kulli waxa weeye in laga dadaalo oo maaragtay kaneecadii la iska ilaaliyo oo la iska buufiyo oo meelaha ka dhalanayso biyaha lagu ciribtiro laga taxadaro, si fiican looga taxadaro kaneecadaas inayan ku cunin.